daraasad cusub oo dhanka siyaasadda ah oo laga sameeyay guud ahaan dalka Norway ayaa muujinayso inuu ku horeeyo hoggaankeeda ra'iisul wasaaraha iminka talada dalkaasi haya Jonas Støre kaas oo ka hormarsan marka loo eego siyaasiyiinta kale ee kursigaasi kula tartamayso. daraasadan oo ay bilaabatay 2025 bishii Maarso 20keedii ilaa iyo 26keedii ayaa waxaa lagu wareystay in ka badan 8167 siyaasi kuwaas oo ku sugan guud ahaan deegaanada kala duwan ee dalka Norway. waxaana la weydiinayay su'aal ahayd cidda mudan in ay dalka Norway hogaamiso marka ay xaaladda halis tahay. arrintan ayaa timid in ay jawaabihii ay siyaasiyiinta ugu badan bixiyeen ay noqotay 46% kuwa oo sheegay in ay ku kalsoon yihiin ra'iisul wasaaraha iminka talada dalkaasi haya Jonas Støre in uu hogaamin karo kana samata bixi karo dalka haddii uu xaalad halis galo, halka 28% ay sheegeen in ay dalka badbaadin karto haweeneydii hore xilkan ra'iisul wasaarenimo looga guuleystay Anna Solberg, halka 14% ay sheegeen Sylvie oo ah hoggaanka xisbiga FRB in iyadu ay tahay qofka badbaadin karta dalka Norway haddii uu xaalad halis galo. xisbiyada kala duwan ee dalka Norway oo ah 3 xisbi ee ugu waaweyn uguna horeysa hoggaankana u haya siyaasadda dalka Norway ee xisbiga shaqaalaha, kan hoyraha iyo xisbiga kale ee FRB ayaa iyaguna si loo kala loo weydiiyay cidda mudan in ay hogaamiso marka xaaladda dalku uu khatar ku jiro. xisbiga shaqaalaha ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha talada haya ayaa siyaasiyiintooda waxa ay sheegeen 97% in ay talada dalka ku aaminayaan Jonas Støre oo hadda talada dalkaasi hayo haddii xaaladdu ay halis noqoto, halka xisbiga hoyre ee hogaamiso Anna Solberg ahna musharaxada xilkan ra'iisul wasaarenimada doorashada dhici doonta bisha September ay xisbigeeda gudaheeda sheegeen in 92% ay tahay qofka xidigta ah ee lagu aamini karo haddii Norway xaalad halis gasho. xisbiga FRB ee hogaamiso Sif ayaa iyaguna lokaalkooda markii la weydiiyay siyaasiyiinta ka tirsan xisbigaasi waxa ay 86% sheegeen in ay tahay iyadu cidda hogaamin karta badbaadi kartana Norway. daraasadan ayaa 12% ka mid ah dadkii ka qayb qaatay siyaasiyiinta lokaalka ah waxa ay sheegeen in aysan mudneen saddexduba in ay dalka hogaamiyaan haddii xaalad halis la galo. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa dunida ku soo rogay cashuuro xad dhaaf ah kuwa oo saameyn ku yeelan doona dhaqaalaha iyo isu socodka ganacsi ee dunida. waxa uuna sheegay Donald Trump in ay maanta Mareykanka u tahay maalintii xurriyadda maaliyadeed marka loo eego wixii isaga ka horreeyay. Donald Trump ayaa cashuuro aad u culus ku soo rogay wadamada xulafada la ah iyo guud ahaan wadamada kale ee uu ganacsiga kala dhaxeeyo. Midowga Yurub ayuu ku soo rogay 20% cashuur gaarayso, halka Norway uu ku soo rogay 16% cashuur gaarayso. waddanka China ayuu ku soo rogay 34% cashuur gaarayso. wadamada kalena cashuuro intaa iyo ka sii badan ayuu ku soo rogay. waxaana arrintanito ay khubaradu ganacsiga iyo maaliyadda sheegayaan inay saameyn xooggan ku yeelan doonto badeecadaha kala duwan ee dunida isaga kala goosha, waxayna qiyaasayaan in ugu yaraan 20% ay kordhi doonaan guud ahaan badeecadaha kala duwan ee laga isticmaalo daafaha dunida. arrintan ayaa sidoo kalena saameyn xooggan ku yeelatay durbaba dalkaasi Mareykanka, kuwa oo iyaguna shirkadaha waaweyn ee Amazon ayaa 5% hoos u dhacday, Meta ayaa 4.7% hoos u dhacday, halka shirkadda Tesla oo uu leeyahay milyaneerka milkiilaha ka ah ee xukuumadda Mareykankana ku jiro Elon Musk ay hoos u dhacday 5.9%. dowladaha waaweyn ee lagu soo rogay canshuurtan xad-dhaafka ah ayaa iyaguna laga filaynayaa inay soo rogaan canshuuro kuwa la mid ah oo ay saaraan dhammaan badeecadaha ka yimaada dalkaasi Mareykanka. hayeeshee wasiirka ganacsiga dalka Mareykanka ayaa ku hanjabay in uu tallaabooyin adag ka qaadi doonaan cid kasta iyo dowlad kasta oo ka hortimaada canshuurtan ay soo rogeen. isbitaalka Arkehus ee dalka Norway ayaa sameeyay qalad aad u weyn kadib markii uu qalliin ku sameeyay bukaan aanan u baahnayn qalliin oo meesha u tagay in laga dhayo dhaawac fudud oo ku yeelay si taalamidana loo sameeyo baaritaano kooban oo ku saabsan dhaawiciisa oo dhayin uu uga socday isbitaalka Arkehus ee dalkaasi Norway. dhacdadan ayaa timid kadib markii ay bukaankan isku magac noqdeen bukaan kale oo qalliin ku lahaa isbitaalka, waxaana la yeeriyay oo kaliya magaciisa iyadoo aan la raacin magaca saddexaad iyo si taalamidana taariikhda dhalashadiisa. waxaana durban lala beegsaday saaladii qalliinka isaga oo weliba diidan arrintaana sheegaya inuusan diyaar u ahayn in qalliin lagu sameeyo, meeshana uusan u imaanin in qalliin lagu sameeyo. hayeeshee dhag jalaq looma siinin oo operatiinkii qalliinka ayaa la fuliyay, waxaana sidaasi qalliin loogu sameeyay
qofkii qaldanaa oo ay isku magaca ahaayeen qofkii qalliinka u baahnaa. dhacdadan ayaa soo shaacbaxday markii bukaankani uu dacwad ka gudbiyey maadaama isbitaalka hoos u dhigay arrintiisa, wuxuuna kiiskiisa dacwada u gudbiyey qaybta guud ee caafimaadka dalka Norway, kuwa oo iyaguna hadda bilaabay baaritaanka. dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa sheegaya in qalliinkan lagu sameeyey bukaanka uu xanuun ku hayo, ha yeeshee aysan saameyn caafimaad oo dheer aysan ku yeelan doonin, waxyeelana aysan ka soo gaari doonin. hay-adda caafimaadka Norway oo arrintaas soo faragelisa ayaa hadda ku hayso baaritaan xoogan kiiskan iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo sida uu khaladkan u dhacay. isbitaalka jaamacadda Aarhus ee dalka Norway ayaa iyaguna ka gaabsaday in ay ka hadlaan dhacdadani oo ay faahfaahin ka bixiyaan. halka ay wararka ugu door karaan maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdullaahi Shiine.